rasuulka calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil buu ka sheekeeyey qolyaha waxaan qisada u dooranhayaa aad bay maanta waxay u badan tahay inuu qofku u aabayeelin meesha wax ka soo galay hamigiisa ay tahay inuu wax badan helo bas rasuulkeenana midaa sheegay wuxuu yidhi yaati cala annaasi zamaanun laa yubaali alrajulu min ayna yaati ilayhi almaal yani zaman waxaa dadka soo mari doona uusan qofku u aabayeelaynin xoolaha meesha oga imanaya hamuhu alakbar an yajmaca maalan kad inuu xoolo badan helo bas oo maxay ahayd inuu yidhaahdo inuu iska ilaaliyo wixii xalaashana uu qaato wixii xaraamtana iska ilaaliye marka zamankii baad moodaa maanta inaan ku jiro marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey nin khaashi ahaa khaa'in ahaa oo ganacsado ahaa ganacsi buu samayn jiray laakiin khashaash buu ahaa khish buu dhex gelin jiray quality-ga ku qaadi jiray maadada uu ka iibinayay dadka ama dhar ha ahaado ama kaba ha ahaado khamriguu ka ganacsan jiray markaa ninkaas khamriguu ka ganacsan jiray badahuu ku safri jiray intuu doomo ku qaado ayuu meelo kala geyn jiray oo safrin jiray marka khamrigu waxaa laga yaabaa qofku inuu yihahdo khamriga see looga ganacsan oo shareecadan marka shareecadeenu mamnuuc laakiin shareecayooyinkii hore inay ku bannaanayd baa dhici karta hataa saxaabatu rasuulillaahi way cabbi jireen soo maha khamriga intayna aayaadka muxaramkan soo degin way bannaanayd waa la cabbi jiray marka ummadihii horena inay u bannaanayd baa dhici karto ka ganacsan jireen khamriguu ka ganacsan jiray intuu sameeyo khamriga masnac buu lahaa intuu sameeyo ayuu sii qaadi jiray muxuu samayn jiray markuu safriyo oo badda uu ku safro ayuu biyihii badda intuu qaaduu ku dari jiray ku badin jiray biyihii badda intuu qaado ama bannaankaba biyahoodii intuu qaado ayuu quality-gu ka qaadi jiray meesha kaba soo qaadba 5 litar oo saafi ay noqon lahayd 3 litar buu ku darhayaa oo kale imise isla noqon markaa 8 litar buu ama 5 kale ku darhayaa waxyaabaha maanta la sameeyo waa dawooyinka sameynaa quality waxay u kala leeyihiin dawadu waa sameynta hore la sameynayo baa dawadii loogu talagalay 5 qof inay dawayso maadadeeda baa 10 la gaarsiinaya quality-ga ka dhimanaya 15 dil la gaarsiin way ka sii dari 20 dil la gaarsiin way ka sii daraysa marka maadadii buu ku khaldi jiray biyo uu ku dari jiray markuu maadadii sameeyo biyo ku dari ku barxi jiray idan quality-ga xumaanahay saasuu samayn jiray qashaashkaas oo wuxuu lahaan jiray daanyeer carbisan oo la socda oo meeshuu u kacaba raaci jiray uu ka haysan jiray carbisan daanyeerku wuu u jeedaa markuu qishkan samaynayo waa u jeedaa biyaha ku darahayo waxaan uu samaynayo daanyeerku waa u jeedaa xayawaanaadkan aad aragteenna wayna hadli karin mooyaan daaqa idraaga oo wixii ay kala garanayaan buu rabbil caalamiin ku abuuray waxaana samaynaysi wayna dhawaaqi karin laakiin si fiican buu u dareemayaa daanyeerka marka waa u jeedaa ninkan qishka uu samaynayo biyahan uu ku khaldahayo waxaan uu samaynayo edab daradana waa u jeedaa ganacsiga uu u raacayaa ilaahay wuxuu qadaray maalmaha kamid rasuulka calayhi salaatu wasalaam kiyo soo gatay wixii alaabtu qaatay khamrigii biyihii isku daray uu qaatay soo gatay lacag u soo noqotay soo cadeey kiishkii wata doontii saaran baddi bartankeeda markay marhayaan yaa daanyeerku intuu ku soo booday buu kiishi ka dafay fag ka sii jaf buu ka sii kala booday waana baddi bartankeedii marhayaan fag wuxuu la fuulay doonta shiraaceeda kore alwaax ah yudusha kala fadhiistay waa kiishkii wuxuu soo shaqeeyay oo dhan uu ku soo guray lacag halkaas la alwaax u goreeyay la fuulay war soo daji warkeen ma jirto marka xaraam iyo dulbi ay sameeyay xayawaankii baa ilaahay kugu diray oo gaarigii baa ka jabi oo wixii oo dhan baa halaabay oo faraskii baa marka diid oo zawjadii baa ilaahay kugu diray meeshii kor u la fuulay wax kasta uu kula hadlay iyo wuxuu sameyn jiray oo dhan ku sameeyay mana fuuli kara alwaax uu ka daba fuuli kara ma waana baddi bartankeeda meel kale oo u kici kara male markaas asagoo indhihiisa fuul yihiin oo fiirinayo ayuu kiishi gacanta gelin kiishu saa gacanta gelin hal diinaar buu badda ku tuuri 2 diinaar soo bixiyo yumina badda ku tuuri min xaqiisii saxiiga u soo tuuri kiishka dhanaa ay buuxiyay lacagta yusaa ku dhamay gacantu gelinaya 2 diinaar buu soo saari mid baddi buu ku tuuray warkada baddi buu ku tuuri midkii kale xaqiisa u soo tuuri meesha saxiiga ahayd buu soo tuuri suusa u waday buu ku dhameeyay lacagta maxay noqotay markaa 50-50 bay noqotay 50na baddi buu ku tuuray 50na saxiiga xaqiisa u soo tuuray macnaheedu maxay tahay intaas badda lagu tuuro waa inta xaraamteeda wuxuu yiri badadka biyaha aad ku khaldaysay adiguna cuni maysid dadkii haddaad ku qaayintay adigana waxa way balaaya ilaahay kugu sallidi intan xaqaada u soo tuuran waa intii saafidayd 50-50 uu ka dhigay marka 50na baddi buu kaga shubay 50 kala xaqiisa u soo tuuray qisada maxaa laga qaadanayaa yaani qofku hadduu dulmi iyo xadgudub iyo qish iyo xaraamnimo uu sameeyo xayawaankii baa ilaahay ku sallidi
xayawaanku inaan dulmiga raalli ka hayna waa laga qaadanaya daanyeerkaas waa adkeysan waayey ninkii wax uu sameeyay oo bini aadamku uu ku sameeyay qishka uu sameeyay daanyeerkii carbisnaa la joogaba waa adkeysan waayey